بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذا مقالة مقدشو قيبت السدحات sidaan hore uga soo hadalnay qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad ee taariikhda magaalada muqdisho waxaan ku sheegnay aasaaskii magaalada iyo sulaalooyinkii isaga dambeeyey saldanadii muqdisho. waxaa kale oo aan ka hadalnay in sulaaladii aala musafar ay ka maarmi weyday inay ku xiranto qarankii ajuuraan. waqtigaa saldanadu dhulka ay ka talisaa aad ayuu u ballaarnaa. saldanadu waxay baabacada dhigtay marka laga soo bilaabo hobyo ilaa iyo mareeg oo waqooyiga ah ilaa iyo inta lasoo gaarayo muqdisho, marka iyo baraawe oo koonfurta ah. dhanka galbeedkana waxay gaartay ilaa iyo magaalada qallaafo. magaalooyinkaas ayaa waxay ahaayeen dekado ay maraakiibta ganacsiga uga safraan dhulalka carabta, hindiya, feneeshiya, beershiya, masar iyo burtuqiiska iyo dhulal kale oo fogfog sida shiinaha. muqdisho waqtigaasi waxay ahayd xarunta farsamada dharsamaynta, sida aan gadaal ka arki doonno. dharkaa oo loo yiqiinay toobanaadir, sida uu sheegay dhulmareenkii ibnu batuuta, oo badanaa loo dhoofin jiray masar iyo suuriya. muqdisho iyo dekadaha hareeraheeda ah sida marka iyo baraawe waxaa sidoo kale adeegsan jiray ganacsatadii sawaaxiliga ahayd ee reer malindi iyo mombasa, iyo weliba ganacsatadii dahabka ee kilwa oo ku tiil dalka hadda loo yaqaano tanzania. dhanka kale ganacsigii hormus oo ahayd boqortooyo ka dhisnayd gacanka carabta, iyo surinbiyoodka loo yaqaano hormus oo hadda ku yaala dalka iiraan. waxa uu ganacsiga u socday labada dhan. ganacsatada yuhuudda ahayd waxay keeni jireen dharka ay ka keenaan hindiya iyo miraha, waxayna ku bedelan jireen galleyda iyo looxa. waxaa kale oo ay xiriir la lahayd malaka qarnigii 15aad. dharka, cambarta iyo alaabooyinka ka samaysan dhoobka ayayna ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay ka soo dhoofsan jireen. saldanadda muqdisho iyadana waxay u dhoofin jirtay duurjoogta sida geriga, dameer farowga iyo wixii la mid ah, iyo fooxa oo loo dhoofin jiray boqortooyadii ming ee shiinaha. taa oo ka dhigtay ganacsatada muqdisho hogaamiyeyaasha ganacsiga ee aasiya iyo afrika. arrintaana waxay keentay in afka soomaaliga uu saameyn weyn ku yeesho afka shiinaha. sidoo kalena waxaa sax ahaa taa cagsigeeda oo ah afka shiinaha in uu asagana saameyn ku yeeshay afka soomaaliga. waxaad isdhihi kartaa in afka soomaaliga iyo afka shiinaha ay saameyn isku yeeshaan waa arrin aan suuroobeyn marka loo eego kala fogaanshaha labada dal. laakiin haddaan u fiirsanno, isna barbar dhigno, waxaan arki doonnaa erayo aan tiro yarayn in ay wadaagaan. tusaale ahaan haddaan soo qaadanno ereyga shiinaha ah ee u qoran sidan oo loogu dhawaaqo zow ama sida badan sow, micnihiisuna waa soco ama tag. afka soomaaligana waxa uu ku yahay isla micnaha. sidoo kale ereyga shiinaha ah ee u qoran sidan oo loogu dhawaaqo miyu oo uu micnihiisu yahay maya oo diidma ah, afka soomaaligana waxa uu ku yahay maya oo diidma ah. ereyga afka shiinaha ah ee u qoran sidan oo loogu dhawaaqo zow iyo ba oo micnihiisu yahay soo bax, afka soomaaligana waxa uu ku yahay isla ereyga soo bax. ganacsatadii hindida ahayd ee ka imaan jirtay surad iyo kuwii koonfur bari afrika oo iyagana ka imaan jiray jasiiradda beta oo ka mid ahayd jasiiradaha laamu oo hadda ka tirsan dalka Kenya, doonayeyna
in ay weydaartaan xayiraadii Burtuqiiska iyo Cumaaniyiinta iyo faragelintooda ayaa isticmaali jiray dekadaha Marka iyo Baraawe oo ka madax bannaanaa labada xoogba si ay ganacsigooda ugu noqdaan kuwa xor u ah. waxay sidoo kale ganacsatada Soomaalida u safri jireen Qaahira, Dimashq, Makha, Mombasa, Cadan, Madagaskar, Hyderabad iyo jasiiradaha badweynta Hindiya iyo Badda Cas. ka sokow xiriirka ganacsi ee ay la lahaayeen mujtamacaadka dhaca marinada ay ku safri jireen, waxaa ka abuurmay in uu baaho cilmiga diinta, ayna soo baxaan shakhsiyaad culamaa u diin ah sida Sheekh Cuthmaan bin Cali Azaylici, Sheekh Cabdulcasiis Almuqdishaawi iyo Sheekh Saciid Almuqdishaawi. culimada Soomaalida ahayd iyagana dhankooda waxay si aada ugu baahiyeen cilmiga diinta dhulka ay ganacsatada Muqdisho ku safri jireen. tusaale ahaan culummada aan soo sheegnay haddaan mid mid uga hadalno si kooban, waxaan ku bilaabi karnaa Sheekh Cuthmaan bin Cali Azaylici. sheekhu wuxuu safaro ku kala bixiyey dunida muslimka ee wakhtiga. ugu dambayntiina waxa uu degay magaalada Qaahira ee dalka Masar. waxa uuna ku biiray ardaydii Soomaalida ahayd ee jaamacadda Al-Azhar. Sheekh Cuthmaan Azaylici waxa uu qoray dhowr kitaab. mid ka mid ah kitaabada waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay midka ugu muhiimsan madhabta Xanafiyada, waxa uuna ka kooban yahay 4 mujalladood. kitaabka oo uu magaciisu yahay Tabyiin al-Xaqaa'iq sharxi Kanz ad-Daqaa'iq, waxa uuna kitaabka ku sharaxay hadalladii Abu Xaniifa an-Nucmaan. waxaan kaloon soo qaadanaynaa Sheekh Cabdulcasiis Almuqdishaawi. Sheekh Cabdulcasiis waxa uu noqday gobernatoraha jasiiradda Uthimu ee dalka Maldives, waxaana ilaa iyo hadda ka dhisan magaalada Muqdisho masjid isaga loogu magac daray oo la yiraahdo Masjidka Cabdulcasiis. sanadkii 1346 Sheekh Cabdulcasiis waxa uu ku soo dhoweeyey Ibnu Batuuta aqalka laga xukumo jasiiradda Uthimu, wuuna martiqaaday. kadibna waxa uu siiyey doon uu ku sii wato safarkiisa. Sheekh Saciid Almuqdishaawi. Sheekh Saciid Almuqdishaawi waxa uu dhashay sanadkii 1301. waxa uuna safray isaga oo dhallinyaro ah si uu wax uga soo barto Makka iyo Madiina, halkaa oo uu ku nagaaday muddo 28 sano ah. isaga oo intaa cilmi kororsi ku jiray, waxa uuna yeeshay arday fara badan oo uu waxbaray. darajadiisuna waxay gaartay caalim ahaan in uu qasarkiisa ama gurigiisa ku soo dhoweeyo amiirka Makka iyo Madiina. intaa kadib Sheekh Saciid Almuqdishaawi waxa uu safaro ku kala bixiyey dunida muslimka ah. waxa uuna booqday Bengal iyo Shiinaha. mar uu joogay masjid ku yaalo xeebta galbeed ee Hindiya, waxa uu la kulmay dhulmareenkii Ibnu Batuuta, nin caalim ku ah cilmiga taariikhda oo la yiraahdo Peter Jackson. waxa uu yiri, kulanka labada nin waxaa laga yaabaa in Sheekh Saciid uu la wadaagay Ibnu Batuuta waxyaabihii uu ku soo arkay intii uu ku jiray safaradiisii Shiinaha iyo faahfaahinno ku saabsan siyaasaddii dhulka Shiinaha, uuna masawir buuxa ka siiyey qabsashadii sulaaladii Yawn. macluumaadka oo uu Ibnu Batuuta gadaalihii ku darsaday warintiisii iyo buuggii uu ka qoray safaradiisii. Sheekh Saciid
almuqdishaawi waxa uu geeriyooday sanadkii 1361 ama sanadkii 1365. guulaha uu gaaray sheekh saciid almuqdishaawi waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin dhulmareen ah oo safarro badan ku sameeyey dunida. waxa kale oo uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee afrikaan ah oo barta luqadda mandariinka oo ah luqadda shiinaha, iyo ninkii ugu horreeyey ee uu turjuma luqadda mandariinka luqadaha afrikaanka sida af soomaaliga. waxa kale oo aad loogu yaqaan in ganacsatada soomaalida ah uu ka dhigay hormuudka ganacsiga u dhexeeya afrika iyo aasiya. intaana waxaanu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii 3aad ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybta 4aadna kala soco isla halkan oo ah channelka rugta hiddaha. cool.